الله وبركاته. agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud iyo agaasimaha waaxda guriyeynta macallimiinta tababarka noo bixinaya madax qaybeedada iyo unugyada wasaaradda gaar ahaan waaxda guriyeynta waan salaamayaa mar labaad runtii waaxda iyo wasaaradda waxa ku socota reform dib habeen lagu sameynayo tayada shaqada iyo shaqaalahaba waaxdan waxay ka mid tahay waaxyaha waaweyn ee wasaaraddu gaarka u leedahay magac ahaana waaxda guryaha matiidina waaxda guriyeynta tiin horta waan uga mahadnaqayaa agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha inuu agaasimo waaxidkiina kala shaqeeyay inuu soo xulo dad bright ah shaqadan qaban karaya diyaar ah waaxyihii kalena laga soo dhaxulay waaxdan aad joogtaan waa waax shaqadeedu aad ballaaran tahay ka mas'uula guryaha dawladda ka mas'uula soo ururinta kirada guryaha biil qaybintooda ka warhayntooda heshiisyadooda xayndaabkooda guryaha waad ogtihiin oo guri kasta oo dawladeed oo dhismihii hore in dhaxaa dhisan hareeruhuna waa deerkuna haddaan la dayactirinta badan u baabaa ama cid kale ku soo durugta ama iyaga dhexdooda isku darka conflict baa ka yara yimaada waa hanti dawladdu leedahay waxaad gacanta ku haysaan aad mas'uulka ka tihiin waana waxyaabaha ugu qaaliga ah oo dhulkii dhismihii baa isku jira marka ahmiyadda ay waaxdu leedahay wasaaradda ayaa keenaya kobaca inta leeg iyo tababaradan iyo in la soo keenyeero oo arrinka noocaas ah kor u qaadista tayada shaqaalaha la idin kala hadlo tababar kule 3 cisho idin soconaya wuuna kala duwan yahay oo waa maamulkii iyo maareyntii xalintii khilaafaadka technology iyo GIS-kii la idinku tababarayo waxaan doonaynaa guri kasta oo diiwaankiisa haysaan oo wasaaradda iyo u diiwaan gashan in boundary-giisa iyo xadkiisa la garanayo sida hore inoogu taalana digital ma aha waxa weey waa hard waxaan rabnaa in software ku upload gareeno systemkeena deetana GPS la soo qaado wana tababarada qaadan doontaan muhiimadda aynu tababarkeena u qabanna waxa weeye aqoon waad leediin wasaaradda aqoon baad ku timaadeen cilmigiina iyo kartidiina aad ku timaadeen laakiin waxa la qabanayo waxay u baahan yihiin xirfad gaar ah iyo tababar gaar ah qofka bani'aadamkaana marka shaqo la keeno ama marka shaqo gaar ah loo xil saarayo waa in la siiyaa wadooyinkii uu marayay wixii caqabada ka hor imanayay sidii loo xalin lahaa waxaan horta idinku baaqayaa inaad aqoonta iyo cilmiga macallimiintu idin transfer garanayaan aad weelaysaan oo aanay naga noqon seminar waa xog leedin doonayay in leedin soo transfer garayo ku shaqeysaan ku hawlgashaan idinkuna nafiina ku anfacdaan ummadana aad ugu shaqeysaan waaxda iyo wasaaradana kor u qaad tayo shaqo ay noqoto muddo kadib macallimiinta ay tababaraya wadin qiimeynayaan waqtiga iyo juhdiga idin geliyeen hadhow dawladdu baa la idinku sameeynaya qiimeyn shaqaalihii wasaaradda ee waaxdii guriyeynta tababarkii la siiyay ma ka faa'iideen ma ku shaqeeyeen maxaa lagu kabayaa ka dhiman markaas maanta kaliya ma noqonayo ama wiigano kaliya ma noqonayo every 3 months hadii la hayraahdo waxaan rabnaa inaynu qiimeynta iyo tababarkaaba isku wadno si aad idinkuna soo baxdaan shaqaale xirfad leh hufan shaqada loo dirsadayna si dhameystiran u qaban karaya wada kulli mas'uuliyadu ma idin wada saaran oo wasiir madaxweyne agaasime waaxeed madax qaybeed unug dawladdu waa jaranjarooyinkaas qof walba inta uu joogay uu shaqada ka hayo ayuunba mas'uuliyadiisa ay tahay inuu xil iska saaraana isaga shakhsiyan way wanaagsan tahay shaqadiisana way wanaagsan tahay marka waxaan kula dardaarmayaa cilmiga la idin barayno weeleeya shaqada wasaaradda dardargelintu ku socotana sida ugu hawl karsan aad u qaban karaysaan u qabta tababaradaasina way isugu kiin xigayaan wiigan marka dhamaysataan muddo kadib baa la idin qiimeynaya insha Allah in shaqadani qabsoontay tababarkoodii sidii loogu talagalay uu idin gaadhay aad ugu shaqeyseen iyo inaydaan ugu shaqeynin mar labaad iyo mar saddexaad waaxda cududa shaqaalaha iyo agaasimo xidkiina macallimiinta shaqadan tababarka ay noo fulinaya waan u mahadnaqayaa idinkuna sida aad maanta uga soo qayb gasheen bari iyo maalinta ku xigta ee inoo soconaysana uga soo qayb gala
cilmigaana beri ka maalin wala isweydiinayay wax gaar ah oo planning-kaaba insha Allah MN idinku samayn doontaa cilmigan laydin soo transfer gareeyay meeting gaari mise meesha wad fadhideen inuu dawad daawaneyseen si wax u socdaan taasina waa ugu muhiimsan hal laga faa'iideysto waqtigu waa waxa uu qaalisanay qofka bini'aadamka ay u haysto marka shaqada waqtigiini leedin kaga soo qaaday leedin qabta inaad idinku sidii loogu talagalay u qabataan mar labaad iyo saddexaad waa idin mahadnaqayaa ilaahay idinku asturo xilalka iyo shaqooyinka iyo hawlka la idin dirayo waxaan rajeynayaa sanadka 2024 insha Allah in hawlaha guriyeynta iyo wasaaradda hawlaha guud shaqooyinkii hore looga qabtay ka badan in laga qabto kiroolayaasha magaalada waxaan maleynayaa baxsaniya baa ugu guriya badnaan jiray baan filayaa waxa laga yaabaa 2-3 qof 5 qof ka shaqeeyo oo lagu mahmaahi jiray war shirkadahan guriyaha leh 5 qof baa maamulo kirada iyo repairing-ka iyo kala wareejinta iyo waxa ka shaqeeyay wasaaradda waaxda ma ka shaqeysay haddana still ma fadhido taa waxaan kaga jawaabaynaa guriyaha dawladdu 30 sanadood kira lagama qaadin qofka gurigiisa siiyay uu dhalangadiyay intaas oo qoys baa degan in gacantii dawladda lagu soo celiyo kira lagu waajibay xitaa kirada laga qaadaya maaha kiro u dhiganta ama u dhow guriyaha bareefadka muhiimaddu waxay ahayd waa guri dawladeed qof muwaadin ah ku jira at least in kaydkii qaranka lagu soo celiyo liiskiisina qofkan ogaado gurigan inuu yahay guri dawladdu leedo kala bixiyo ku yahay marka 24 ka markii barnaamijyadaasi inoo dhameystirmaan inoo hirgalaan waxaan rajeynayaa inay wasaaraduna nasan doonto waaxduna nasan doonto qaab digital ah oo casri ah oo qof walba halka looga yeeliyay insha Allah aynu ku maamuli doono mar labaad iyo mar saddexaad wadi mahadnaqayaa khayr iyo wanaagna wadi ka tagay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh